بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، walaalyaal dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. waa barnaamijkeenii ta'amulaad qur'aaniya xalaqadiisii labaad. xalaqadii hore waxaan kasoo sheekeynay suurat lbaqara, hadafka guud oo suuradda ay ku wareegeyso oo ahaa inuu qofka bini-aadanka ah asaga mas-uul dhulka ka yahay, khaliifatullaahi fi lard inuu aadanaha yahay. kadibna 3 tajrubo oo bini-aadanka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhulka mas-uul uga dhigay kasoo sheekeysay juska hore oo suurat lbaqara. tajrubadii nebi aadan calayhi salaam iyo wixii soo dhexmaray ibliis iyo nebi aadan calayhi salaam, iyo tajrubadii reer bani israa'iil, iyo tajrubadii nebi ibraahim calayhi salaam. maanta insha allahu tacaala waxaan ka sheekeynaynaa juska labaad oo suurat lbaqara oo ka bilaamaya sayaquulu الsufahaau min annaasi ma wallaahum can qiblatihim alatii kanuu calayha qul lilaahi almashriqu walmaghrib ilaa tilka arusulu fadalnaa bacdahum. waa juska labaad ee qur-aanka kariimka ah. juskan wuxuu ku wareegayaa manhajka qofka muslimka ah la raba inuu qaato oo rabbaaniga ah, si dhulkana si wanaagsan ugu noolaado, dhulkana mas-uul uga noqdo, dadkana uu u anfaco. qofka marka dhulka mas-uul ka noqonaya oo khaliifatullaahi fil ardi noqonaya waa inuu leeyahay manhaj uu ku socda uu raaco. juska labaad baa si fiican oo qurux badan oo tafatiran uga sheekeynaya manhajka ama brogramka qofka la rabo inuu ku socdo. juska hore wuxuu ahaa qisooyin hore iyo tajrubooyin hore, dad ku guuleystay mas-uuliyadda ilahi subxana wa tacaala uu dhiibay iyo dad aan ku guuleysanin. juska marka labaad waa manhaj runtii dhammaystiran oo cajiiba. ilaahna subxaanahu wa tacaala ma aragtay dhinacyo badan oo kamid ah manhajkaas buu suuraddan kaga hadlay, juskaana kaga hadlay. wuxuu ku bilaabay ilaahi subxaanahu wa tacaala aayadda sayaquulu sufahaau min annaasi ma wallaahum can qiblatihim alatii kanuu calayha. waa qiblada muslimiinta oo laga wareejiyey beyt lmaqdes oo loo wareejiyey maka almukarama. qisadaasuu ilahi subxana wa tacaala ku bilaabay. kadib ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ka hadlay xajka, ina asafa walmarwata min shacaa'ir illahi faman xaja albeyta aw ictamar. kadib ilaahi subxana wa tacaala wuxuu ka hadlay islaaxu lmujtamac, mujtamaca sidii loo islaaxin lahaa iyo wanaaga buu ilahi subxana wa tacaala ka sheekeeyay. laysa albir an tuwalluu wujuhakum qibala almashriqi walmaghribi walakina albira man aamana billahi walyowmi alaakhir wad. kadib ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu galay suurat lbaqara manhajka oo jinaa'iga, dadka haddii wax iska laayaan, haddii qof uu dilo see loola tacaamulaa. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى سيود إلى الله سبحانه وتعالى وكير ولكم في القصاص حياة. كذب الله سبحانه وتعالى وحو كحجسي أحكام دورة ووهر رسومك. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صومك إي أحكام تيسا إيو مارت قصدك أما مقصدك اللي قال لي هي soomka oo ah taqwa allahi subxaanahu wa tacaala, qofka inuu nafta ku tahdiibiyo, ilahi subxana wa tacaala uu ka baqo, bini-aadanka inay yihiin dad siman in la ogaado. buu ilahi subxana wa tacaala ka sheekeeyey shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda walfurqaan, iyo waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariib. iyo qofka bini-aadanka markuu sooman yahay see xaaskiisa ula tacaamulaayo. uxila lakum leylata asiyaami arafathu ilaa nisaa'ikum huna libaasun lakum. kadib ilahi subxana wa tacala wuxuu dhamaystiray arinta xajka, waatimu alxaja walcumrata lilah wadkuru llaha fi ayaamin macduudaat faman tacajala fi yowmayni falaa ihma calayh. aayadaasuu ilaahi subxaana wa tacaala xajka kaga hadlay iyo maqaasida xajka laga leeyahay iyo manaasigtiisa iyo axkaamta xajka buu ilaahi subxaana wa tacaala si mufasal ah oo tafsiilsan uga sheekeeyey. kadib ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu bilaabay
nidaamka iqtisaadiga oo islaamka buu bilaabay infaaqa iyo sadaqada iyo zakada iyo maaragtay maalku inuu yahay ilaahay subxaana watacaala inuu maalku leeyahay qul low antum tamlikuuna khazaa'ina raxmati rabbi idan la amsaktum khashyata alinfaaq suurat israa suu ilaahay subxana watacaala uu ku yiri haddii aadanaha ayaga gacanta loo gelin lahaa xoolaha mas-uul looga dhigi lahaa maxay samayn lahaayeen idan la amsaktum khashyata alinfaaq wa kana alinsaanu qatuura maalka ilaah baa subxaana watacaala iska leh asagaana qofkuu raba siiye qofkii rabana ilaah subxana watacaala u diida isagoo ku imtixaanaya bilaadanka marka waxaa loo baahan yahay mujtamaca kuwa dhaqaalaha leh inay siiyaan zakada iyo sadaqada iyo xoolahooda wanaagsanba muslimiinta aanan wixii haysanin si takaaful ijtimaaciya loo helo mujtamacana uu iskugu dheelatirnaado nidaamka marka iqtisaadiga oo dhaqaalaha oo qur-aanka kariimka ah ilaah subxana watacaala si fiican uga sheekeeyey aayado kamida kaga taabtay aayado kale oo mufasal ahna ilaah subxana watacaala wuxuu uga sheekeyn doonaa suurat lbaqara qeybteeda dambe oo juska saddexaada markuu ilaah subxana watacaala ka hadlay ribada uu ka sheekeeyey ilaah subxana watacaala ganacsiga uu ka sheekeeyey deynta uu ka sheekeeyey sadaqaadka aladiina yunfiquuna amwaalahum bileyl wannahaar uu ka sheekeeyey qowlu macruuf wamaqfirat khayru min sadaqatin yatbacuha ada nidaamka islaamka oo iqtisaadiga ah oo aliqtisaad alislaami o dhan nidaamka qismiga saddexaad oo suuraddu ilahi subxana watacaala kaga sheekeeyey qeybo ka midana juskaanu ka taataabtay suuradda kadib ilahi subxana watacaala wuxuu bilaabay nidaamka alusra almuslima faamilka muslimka ah iyo waxaa looga baahan yahay oo ah khidbadii yani waa shukaansiga nidaamka shukaansiga kadib nidaamka guurka ilahi subxana watacaala wuxuu kaga sheekeeyey nafaqada maaragtay ninka laga rabo inuu xaaskiisa iyo ciyaalkiisa iyo gurigiisa uu maaragtay nafaqeeyo waxaa laga sheekeeyey nuugmada ciyaalka markii la nuujinayo waqtiga ciyaalka maaragtay nuujinta laga joojinayo fain araadaa fisaala can taraadin minhuma watashaawurin falaa junaaxa calayhima waalwaalidaatu yurdacna awlaadahuna xawlayni kaamilayn ciyaalka yani in 2 sano la nuujiyo axkaamta nuujinta iyo waajib ku tahay iyo goorma cunug maaragtay naaska laga joojinaya si mufasala bay aayadaha uga sheekeeyeen kadib ilahi subxana watacaala wuxuu ka hadlay dumarka raggoodu dhinto waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan kadib ilahi subxana wataala wuxuu ka sheekeeyey furniinka iyo axkaamta furniinka haddii gabadha nin ay kala tageen ama laga dhinto oo kale inaan hore lagala sheekeysanin kadib ilaahi subxaana watacaala aayadahaas usaa u waday waa axkaamta guurka axkaamta khidbada axkaamta sakanka iyo nafaqada axkaamta talaaqa axkaamta dhihaarka iyo ilaaga axkaamo badan oo faamilka iyo usra muslima quseeya bu ilaahi subxana watacaala axkaamu rajca uu kaga hadlay ilaahi subxana watacaala oo mufasal ah qofka muslimkan la rabo inuu dib ugu laabto aayadaha ayagoo maaragtay sharaxan tafaasiir mufasal ah uu helo kadib ilaahi subxaana watacaala wuxuu ka sheekeeyey nidaamka islaamka oo silmiga iyo dagaalka marka nabadda la joogo iyo marka dagaalka lagu jiro sideed qofka muslimka la rabaa inuu u tacaamulo xilliga dagaalka iyo xilliga nabadda buu ilaahi subxana watacaala ka sheekeeyey kadibna ilaahi subxana watacaala wuxuu ku soo khatimay dagaalkii dhex maray nebi daawuud calayhi salaam iyo jaaluut ninkii la dhihi jiray reer bani israa'iil markii la dhibaateeyey oo la dulmiyey oo dhulkoodii laga qaaday oo alam tara ila aladiina ukhrijuu min diyaarihim alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluufun xadara almowt yacni ummad dhan oo tiro badan oo xoog leh baa guryahoodii iyo wadankoodii ka soo qaxay oo ka tagay ayagoo ka baqaaya geeri ka baqaaya oo ilahi subxana watacala marka dambe taaluud usoo diray oo maaragtay oo ilahi subxana watacaala awood cilmi iyo awood jismaaniba uu siiyey iyo nebi daawuud oo nin yar ahaa oo la socday taaluut la shaqeynayay dagaalkii marka dhex maray buu ilahi subxana watacaala ku soo gabagabeeyey juskan labaad oo suurat lbaqara alla uu leeyahay fahazamuuhum biidni illaahi waqatala daawuudu jaaluuta waaataahu allahu lmulka walxikmata wacallamahu mima yashaa nebi daawuud baa wuxuu ka guuleystay mubaarasadii ninkii jaaluud la dhihi jiray xooga weynaa oo awoodda lahaa oo musiibad ahaa oo dhulo badan xoog kusoo qabsado dad badan laayay nebi daawuud oo dhalinyaro ah oo mu'arikhiinta iyo dadka ahlu siyarka waxay yidhahdaan 15 jir meelaas u ahaa baa ka adkaaday fahazamuuhum biidni illaah waqatala daawuudu jaaluutuu dilay kadib ilahi subxana wataala wuxuu yidhi waaataahu allahu alxikmata
ilahi subxana wa tacaala wuxuu siiyey boqortooyadii iyo diintii buu iskugu daray wacallamahu mima yashaa. wuxuu kusoo gabagabay ilaahi subxaana wa tacaala aayad cajiiba, masale cajiiba oo ah walowlaa dafcu llahi annaasa bacdahum bibacdin lafasadaati alard. hadduuse ilahi subxana wa tacaala bilaadan kaleeto uusan ka horgeeyen mudaafaca uga sameeyen dhulka o dhan baa fasahaadi laha. walaakina allaha duu fadlin cala alcaalamiin tilka aayaat llahi natluuha calayka bilxaq wainaka la min almursaliin. juska labaad intaasuu ka kooban yahay sayaquulu sufahaau ilaa iyo tilka aayaat llahi natluuha calayka bilxaq wainaka la min almursaliin. maraaxil kala duwan oo cajiib ah buu jusku marayaa. arinta qiblada, kadibna hadana ina asafa walmarwa, hadana islaaxu lmujtamac, hadana dilka iyo qawaaniintiisa iyo axkaamta jinaa'iyaadka, hadana soomkii, maaragtay hilaalka iyo sida loola tacaamulo xajka, haluma jarna ilaa laga gaaro qisadii daawuud iyo jaaluut, iyo maaragtay ilaahi subxaana wa tacaala uu kusoo gabagabeeyey inuu yiri nabi maxamed uu la hadlay wainaka la min almursaliin. juskaa runtii waa jus cajiiba, manhaj aada cajiiba uu ku jiro. dadkeena ahlu cilmiga ama talabatul cilmiga ah ama mujtamaca su u dhan yahayna juskaas inay focus ka saaraan, wax badan ka akhristaan, laanna waa manhajkeennii aan ku socon lahayn. marka wada gaari karno inaan kulligood wada tafaasiilino. laba qodobo waaweyn baan insha allahu tacaala ka dul istaagaynaa oo mixwar noo ah xalaqadeennan. midda koobaad taghyiiru lqibla oo jusku uu ku bilaabmayo. aayadihii hore maxay cilaaqo la leeyihiin? waataan sheegnay suurat lbaqara inay aada u dheer tahay, 286 aayadood ay ka koomato. hal hadaf baa ka dhexeeya. qisooyinkan oo faraca ahna kulli cilaaqaad bay leeyihiin, sida silsilad bay iskugu xirxiran yihiin. haddaan dib u noqono 3 safxadood camal juskii hore, ilahi subxana wa tacala wuxuu yidhi maa nansakh min aayatin aw nunsiha na'ti bikhayrin minha aw miliha. wuxuu kasoo sheekeeyey axkaamta ilahi subxana wa tacaala iyo aayadaha qur-aanka in la nasakho, naskhiga. xukun baa jiray, xukunkii qaab buu islaamku ula tacaamulay, kadib waa la nasakhay, xukun kala xal kalaa lagu bedelay. naskhigu marka waxaa weeye in aayad kale lagu bedelo, macnaha ahaan loo bedelo, laakiin aayaddii ay joogto ama lafdigii aayadoo dhan la qaado ama xukunkii uu joogo. waa 10 dhan oo usuul fiqiga iyo lagu barto. laakiin naskhigu waxaa weeye xukun hore oo islaam oo jiri jir in xukun kale lagu bedelo. aadna islaamka wuu ugu badan yahay, qur-aanka kariimkana wuu ku jiraa, sunnada nabiga sal ly slam way ku jirtaa. waa sida ay u badan yihiin usuuliyiinta iyo ahlu sunna waljamaaca. markuu islaamka uu qur-aanka kariimka uu taqriiriyay inuu naskhi jiro, buu ilahi subxana wa tacala haddana wuxuu ku xujisiiyey kacbada iyo dhismaheedii, iyo inuu ilahi subxana wa tacala nabi ibraahim iyo ismaaciil uu amray inay kacbada dhisaan. xaramkii bay soo dhiseen. naskhigan ilahi subxana wa tacaala uu kasoo sheekeeyey. kadib ilahi subxana wa tacala juska labaad wuxuu ku bedelay in la nasakhay muslimiinta meeshii marka hore ay u jeesan jireen qiblada ka dhigan jireen. diintii hore yuhuudda iyo diintii nasaarada ama kristanka waxaa qiblad u ahaan jirtay baytulmaqdes oo falastiin ku taalla. ilaahay subxana wa tacaala gacanta muslimiinta ha soo geliyo, hana ka qaado gacanta sahayuuniyada iyo gaalada. halkaasay u jihaysan jireen yuhuudda iyo kristankaba. islaamkii markii hore intii madiina uusan imaanin oo maka la joogay 13 sano iyo 2 sano hore madiina lagu noolaaba waxaa loo jihaysan jiray bayt almaqdes. ka hor xilligii nabi ibraahim calayhi salaam waxaa loo jihaysan jiray maaragtay qiblada oo maka almukarama oo ku taalla sacuudiga ku taalla. marka qiblada maka ah carabta iyo dadkii maaragtay ku noolaa maka almukarama aad bay u ijlaalin jireen una weynayn jireen. nabiga sal ly slam markii la amray inuu baytulmaqdes u jihaysto, waxaa ku jira walwal badan. nabiga sal ly slam uu maaragtay ka walwalsanaa in carabtii iyo dadkii deegaanka ahaa ay leeyihiin dee qibladii makay ahayd, maxaa maaragtay dhinaca. ilahi subxana wa tacala marka wuxuu kasoo sheekeeyey naskhiga, haddana wuxuu kasoo sheekeeyey xaramkii kacbadii oo la dhisay. labadaas markuu ilahi subxana wa tacaala tamhiid uga dhigay qiblada markii la wareejinayay, buu alla subxana wa tacala aayadahan keenay. sayaquulu sufahaau min annaasi maa wallaahum can qiblatihim alatii kaanuu calayha. maxaa marka ay tahay muhiimadda laga leeyahy waxaa weeye dadka muslimiinta daaco kaamilo ah inay la yimaadaan, inay ilahi subxana wa tacaala amarkiisa qaataan, rasuulka ilahi subxana wa tacaala amarkiisa ay qaataan. adaaca
waana qodobka ugu weyn oo laga leeyahay maqsadku ma ahan in loo jeesto un xaramka loo jeesto qiblada loo jeesto maqsad bayt al-maqdis waa amarka ilaahay subxaanahu wa tacaala in la qaato iyo dadka muslimiinta ah inay noqdaan ummad gooni ah oo soocan oo khaas ah oo itijaah gooniya leh ummado hore iyo cibaadadoodii hore aan qaadanin tamyiiz ama mumayiz inay noqoto umma islaamiya umma waxa way khaasa qiblo waxay leedahay gooni ah cibaadaadkooda waa gooni ikhlaaskooda iyo tawxiidkooda iyo manhajkooda waa manhaj rabbaani ah ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xiran manhajka marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka hormariyey saddex qiso oo cajiib ah oo aan ka soo sheekeynay xalaqadii hore oo ah in nabi ibraahim nabi aadan la amray inuusan geedkaas u dhowaanin ibliisna uusan ateecin nabi aadan calayhi salaam geedkiibuu cunay daacadii baa laga waayay reer bani israa'iil waxaa la amray inay ay neef maaragtay lo ah ay gowracaan daacadii ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo amarkii nabi muuse maysan qaadanin nabi ibraahim calayhi salaam waxaa la amray inuu xaramkii dhiso inuu cunugiis yarka ah uu gowraco inuu asaga laftiisa isgudo asagoo nin weyna waa awaamirtii la siiyey kulli wuu ka soo baxay nabi ibraahim calayhi salaam mu'miniinta hadda maxaa la amray maalin casr ayagoo tukanaya oo bayt almaqdis usii jeeda in la yidhahdo hal mar u jeesta maka almukarama qiblo ka dhigta ilaahi subxana wa tacaala wuuba caddeeyey oo wuxuu yidhi wamaa jacalna alqiblata alatii kunta calayha yacni qibladii hore oo ahayd baytulmaqdis inaa u jeesatid maxaa lagu amray ilaa linaclama man yatabicu arasuula miman yanqalibu calaa caaqibay yani maxaa loo amray nabiga in qibladiisa uu bedelo in la ogaado qofka amarka ilaahi subxaana wa tacaala qaadanaya amarka rasuulka qofkii qaadanaya in la ogaado iyo qofka maarata gadaal u noqonaya ilaa linaclama man yatabicu arasuula miman yanqalibu calaa caaqibay marka waxaa weeye daacadan laga rabo dadka muslimiinta inay la yimaadaan saddexdii daaco ka horeysay baa tajrubo u ahayd qiblada intaan la bedelinna ilahi subxana wa tacaala wuxuu ka hormariyey naskhiga inuu kasoo sheekeeyey wax kastoo xukunahoo la bedelo ama aayad ilaahi subxaana wa tacaala uu bedelo mid ka wanaagsan unbuu keenaa ilaahi subxaana wa tacaala marka waxaa lagu barayaa dadka muslimiinta ah dhaqankooda iyo akhlaaqiyaadkooda iyo amarkooda la baraya kadib ilaahi subxana wa tacaala wuxuu ka sheekeeyey xajkii iyo cumradii kadib wuxuu ka sheekeeyey ilaahi subxaana wa tacaala laysa albira an tuwalluu wujuhakum qibla almashriqi walmaghrib walaakina albira yacni wanaagu ixsaan falka birigu ma ahan inaad usii jeesataan uun dhinaca qoraxda kasoo baxday dhinaca qoraxda u dhacdo birigu muxuu yahay in ilaahi subxana wa tacaala la rumeeyo maalinta aakhira la rumeeyo malaa'igta la rumeeyo kutubta la rumeeyo rususha ilaahi la rumeeyo waa iimaan inuu qofka la yimaado kadib wa aata almaala calaa xubihi zaka uu bixiyo sadaqa uu bixiyo masaakiinta iyo dadka aytaamta iyo dadka qaraabada uu siiyo salaadii uu tukado kadib ballantii uu kasoo baxo kadib uu sabro kadib wad ilaahi subxana wa tacaala marka wuxuu kasii sheekeeyey qaanuunkii jinaa'iga ahaa iyo maaragtay in lagu soo xaliyay walakum fi lqisaasi xayaatun soomkii buu ka sheekeeyey wada qisada labaad insha allahu tacaala aan isleenahay ka faa'iidaysta juskan oo muhiimka ah oo aayadaha dambe o dhan ay ka sheekeeyeen ilaa ilahi subxana wa tacaala uu tusaale usoo qaatay nebi daauud iyo qisadii asagii jaaluud dhex martay waa qisada nabadda iyo dagaalka waana masalada ugu muhiimsan xalaqadan aan ka faa'iidaysanayno bilaadanka aadanaha ilahi subxana wa tacaala markuu abuuray waxyaalaha khasaa'ista la ah waxa way bilaadanka tadaafuc in bilaadanku uu isqabto isximiyo isnaco iskhilaafo isxasdo maaragtay isku aragti aysan ahayn ilahi subxana wa tacaala wuxuu yidhi walow shaaa rabuka lajacala annaasa ummatan waaxidatan walaa yazaaluuna mukhtalifiin ilahi subxana wa tacaala wuxuu abuuray bilaadanku inuu nin walba fikir gooniya leeyahay iskhilaafsan yihiin mana ka zuulayaan walidaalika khalaqahum sidaasuna ilahi subxana wa tacaala u abuuray inay bilaadanku iskhilaafsanaadaan waxlaha marka laisku khilaafo oo bilaadanku isku qabto oo siraaca ama loolanka uu ka dhaco waxaa kamid a arrimaha diiniga ama siraaca ideolojiga ah waxaa kamid a biyaha waxaa kamid a dhulka waxaa kamid a hawada waxaa kamid a wadanka laisku qabsado waxaa kamid a dhaqaalaha waxyaalo badan baa laisku diriraa nebi aadan labadiisii wiil calayhi salaam haabiil iyo qaabiil keligood ayagoo adduunkan saaran kawkabka intaa tiro la-eg oo waxaasoo khayra iyo waxaasoo bada iyo waxaasoo webiya leh
baa deeqi waayey haabiil iyo qaabiil ilaa qaabiil uu dilay haabiil uu dilay. waa dilku marka min yawmi haabiil wa qaabiil buu soo bilaabmay ilaa yawmu qiyaamu saacana wuu soconaya. waxalooyin kala duwan baa la isku qabsadaa, marba mas'ala la isku qabtaa. marka qofka bini'aadanka ah marxalad wuxuu ku jirayaa nabad, marna wuxuu ku jirayaa marxalad dagaal buu ku jirayaa. islaamka marka waa diin waaqiciya, nabadana waxay usoo dejisay maaragtay usuul iyo maqaasid iyo fiqhi iyo awlawiyaat. nabadda fiqhu silmi buu leeyahay islaamku. dagaalka markii la joogana fiqhi buu leeyahay. hadda dadka muslimiinta ah iyo hadda casriga aan nool nahay, mashaakilka caalamiga oo waaweyn haddii la yidhaahdo maxaa hadda adduunkan dhibaatada haysta, lambar one hadda waxaa weeye dilka iyo argagaxisnimada iyo cunfiga iyo dhibaatada hadda caalamka haysataa. muddada dambana islaamka waxaa lagu soo leexiyaa inuu yahay diin dagaalka iyo cunfiga iyo laynta iyo dhiigga iyo ku shaqeysa, ilaa loo bixiyo islaamka argagixiso. meel walba ay joogaanna dhibaatadaas waxaa noogu dambeeyey masaajidkii New Zealand, ilaahay u naxariis dadka muslimiinta ku dhintay 51 qof meelaha ay ku dhimatay. ma min waqti la jooga ama maalmo la joogaba Soomaaliya Muqdisho qaraxyo bilay hadda ugu dambeeyey ilaa 13 ilaa 14 qarax baa Muqdisho dhexdeeda ka dhacay. arrimaha marka runtii islaamka iyo aragtida uu ka qaba nabadda iyo aragtida markii dagaalka la joogo juuskan si fiican buu uga sheekeeyay, waana qayb mixwari ah ayadan insha Allah taala xalaqada aan ku soo gabagabeynayna. islaamku asal waxa uu ah nabad, silmiga nabad uu ah asilmu nabadda. wuxuuna islaamka ku faafaa oo ku baaha oo meel walba ku gaara waa nabad. dagaalku waa arin istithnaa'i ah ama waa arin secondary ah ama waa arin laga maarmi waaye ku yimaadaa. marka la fiiriyo waqtiyada islaamka uu dagaalka baneeyay, runtii 3 qodob baa la dhihi karaa uu ku baneeyay. marka koobaad waxaa weeye qofka inuu asaga isdifaacayo, sida Ilaahay subxanahu wa ta'ala uu yiri udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu. qofkii la dulmiyey oo gurigiisa laga saaray, alladhina ukhrijuu min diyaarihim, gurigiisa laga saaray, naftiisa la maartay qiriil la geliyay, inuu markaa isdifaaco waajib bay ku tahay. waa jihaadka islaamka. markii gurigaaga laga saaro ama naftaada lagu maartay ciriiriyo ama lagu dhaco ama lagu dhibaateeyo, udhina lilladhina yuqataluna biannahum dhulimu. waa maqsadka koobaad oo jihaadka islaamka. waxaana filayaa gaal iyo muslim way isku raacsan yihiin taas, in qofka markii la dhibaatay uu isdifaaco. walidaalika hadda adduunweynaha si u dhan yahay wasaaradda waxay leeyihiin wasaaratu difaac, wasaaradda difaaca. muslim iyo gaal waa isku waafaqsan yihiin. arrinta labaad oo islaamka uu waajib ka dhigay jihaadka waxaa weeye dad masaakiina markii la laleynayo inaad difaacdid. qadiyadda saddexaadna waxaa weeye markii la diido ama gaaladu ay diidaan in islaamka la faafiyo, nashru dacwa alislaamiya. haddii ay la diido oo kaleeto qofka inuu islaamkiisa asaga ku dhaqmo ama uu faafiyo, markaas waa amranta adoo markaas lagu fiirinayo duruuftaada iyo awooddaada iyo xoogaaga iyo ma diyaarsan tahay, qofka cadowga ka soo horjeedo iyo asbaabtii maadigeed iyo asbaabtii diinigeed. labadaas sababna waxaan ugu tagi doonaa insha Allah hadduu Ilaahay na gaarsiiyo suuratul anfaal, asbaabta maadiga iyo asbaabta diiniga ah oo laga rabo qofka inuu la yimaado. waa asbaabaha dagaalka. sida kale islaamka waxaa basic u ah silmiga iyo nabadda. waxaan kaloo soo sheegnay in islaamku maraaxil uu soo maray, hadba marxaladda la joogo baa la rabaa in lagu dhaqmo. xilligii islaamka uu soo baxayo Maka uu nabiga sallallahu alayhi wasallam ku noolaa, nabiga lama amrin inuu wax radul ficli uu sameeyo, bal markii Maka laga saaray Taa'if buu tagay. waatuu markii Taa'if uu tagay qabaa'ish uu ku soo wareegay, uu dhahayay man yu'wini man yansuruni, wariya isoo dhaweynaya, yaa i dejinaya, yaa i kaalmeynaya, yaa i garab siinaya, xataa uballiga risaalata rabbi, ilaa risaalada Ilaahay subxanahu wa ta'ala dadka aan gaarsiiyo. watii Taa'if laga soo eriyey oo carabihii uu ku wareegay oo Maka xataa inuu soo galo loo diiday nabiga sallallahu alayhi wasallam, ilaa markii dambe nabiga uu Madiina u soo hijrooday. ma uusan joogin marxalad uu nabiga sallallahu alayhi wasallam isdifaaco. dadkii muslimiintana waagaas waaqici ku noolaayeen uma diyaarsaneen.
nabiga sal slam madiina usoo guuray dowlad islaamahu dhisay muslimiin xoog lahoo isdifaacaya baa soo baxay kadib alla wuxuu yihi udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu isdifaaca taas waa qodob waqtigii marka nabiga sal slam uu noolaa iyo saxaabadii ay noolaayeen iyo fatradeeda markaa caalamka fiirisid wax heshiisyaa ma jirin wax maaragtay miithaaq iyo cuhuud iyo ballamo iyo xuduudo iyo wax dowladaha iyo ma jiri jirin waqtigii nabiga sal slam la soo diray waagaas waxaa jiri jiray imbaraatoriyadda weyn oo rumaanka iyo imbaraatoriyadda furs baa kala haystay xilligaasna wuxuu ahaa nin walbow meesha awooddaada ku gaarsiiso adaa degan wax xuduuda ma jiri jirin marka ninkii xoogaa awood yara helaba weerar buu soo qaadaya dhulkuu rabuu iska qabsanaya meesha kaga dhamaatuu iska fadhiisanaya intaan anaa askale buu leeyahy marka waxaa jiri jira caqliyad ah qofka ku qaday intuusan kugu casheenin marka waa sii fakeraysaa istaraatiijiyad waxaad dareemaysaa inuu qabiilkan kusoo weerari doono waa la kala awood badnaa dagaal qabiil dagaal maarata imbaraatoriyaad asagoo aan kugu soo guurin baad marka hujuum ku samaynaysa waa ka hortegaysaa nidaamkaasoo marka bini aadamku ku noolaa islaamkii wuu soo degay nabiga sal ly slm madiinuu yimid markaad fiirisid ghazawaadkii nabiga sal ly slm say u dhan yihiin ghazwo kasta sabab bay ku timid ma jirto mar nabiga sal ly slm intuu iska duulay ummad uu ku duulay bimujarad inuu islaamka dadka u gaarsiiyo ma aysan ahayn nabiga sal ly slm ghazawaadkiisa say u dhammaayeen ghazwatu badr ghazwatu luxud ghazwatu laxzaab kulli waxay ahaayeen dagaalo nabiga sal slam asaga lagu qasbay inuu galo axzaab oo kaleeto nabiga sal slam madiine asagoo jooga loogu yimid square baa laga qabtay mu'to oo kaleeto nabiga sal slam saxaabuu diray waa la soo laayay marka yani mid walba waxay ahayd miduu nabiga sal slam isdifaacaya ma jirin waqti nabiga sal ly slam uu yihi hal la dagaalamo un oo fantashiru fi lardi oo aan sabab lahayn yani islaamka waxaa la faray inuu la dagaalamo qofkii la dagaalamay laakiin ha xadgudbina ilaah subxana wataala markuu ka sheekeeyey wuxuu kusoo dhamaystiray walaa tulquu biaydiikum ila tahluka hadhihin anoo hadda soomaali ahoo yaaban oo waxaa cunala oo baaba iyo 30 sano soo dagaalamaya bisha soo soctana maaragtay Addis Ababa baan ku tukanayna tan ku xigtana Seattle baan ku tukanayna tan kalena waxaan aadaynaa Beijing iyo Bakin iyo China aadaynaa awooddaadaba ma ahanba marka islaamka qaabkaas ku socday hadda oo la joogo waaqica hadda aan ku noolnahay waxalooyin badan baa isbedelay kow waxaa la isbedelay waxaa ka mid ah adduunkii ama biniaadamkii wuxuu ku heshay xuduudo Soomaaliya hadda waxay leedahay xuduud Ethiopia waxay leedahay xuduud Maraykan wuxuu leeyahay xuduudaa la samaystay waxay kaloo aadanuhu ay samaysteen union ama qaramada midoobe ama umamul mutaxida wixii loo yaqaan 209 dowladood meelahaas baa hoos yimaada caalamka hadda waxaan la soconnaa 209 dowladood yani 10 ama 20 ma ahna inta kale awood inaysan lahayn waxay ku nool yihiin ay aamin ku yihiin heshiisyada caalamiga oo la gaaro marka waxaa la sameeyay bilaadanka xuduudo heshiisyo uquud iyo mawaafiiq iyo agreementiyo iyo inaan la isku soo boodi karin qaabkaas loo noolyahay waxaan soo sheegnay in isbedeleen xuduudaha waxaa isbedelay heshiisyada waxaa isbedelay qawaaniinta iyo waxa adduunka lagu dhaqaayo laba waxaa isbedelay waxa lagu dagaalamayo waagi hore waxaa lagu dagaalami jiray seef iyo faras iyo falaar iyo waran waxaa laga yaabaa marka ciidan 1000 qof ah iyo ciidan 500 oo qof ah inay iskaga hor yimaadaan qalabka noocaas oo dagaalka ah waxaa marka lagu kala tabarbadinaya marka yani iimaanka iyo quwada iyo xamaasada iyo hadda waxaa soo baxay asaaliib kale oo mucaasir hadda adduunkii loo dagaalamo nuclearkii iyo bam atomkii iyo hydrogenkii iyo chemicalkii iyo sunta iyo diyaaradahan iyo sawaariikhdan iyo baa soo baxay marka waxaa garanaysaa marka adraarta ama dhibaatada ka kala imaan karta marka isku barbar dhigtay dagaaladii hore iyo dagaaladan dagaalada hore waxaa laga yaabaa 1000 qof iyo 1000 qof markay isdiraan inay ka dhimato 50 iyo 50 hadda waxaa laga yaabaa 20 qof iyo 20 qof markay isdiraan Soomaaliya tuulo kamid oo kale isku soo ama dhul isku qabsadaan in la yiraahdo 20 qof baa dhimatay 30 qof baa dhimatay hotel ku yaal Muqdisho hal mar bamba lagu dhiftay 300 oo qof baa ku dhimatay waa hal bambo
dagaalkii labaad waa la socotaan adduunka 1939 ilaa 45 65 milyan oo qof baa ku dhintay. dagaalkii koobaad waxaa ku dhintay 15 milyan. labadaa dagaal markii la isku daro 75 milyan oo qof baa ku dhintay. intaasoo dadana waa barakacin, intaasoo dhul baa baaba'ay. ilaa yowmina hada Hiroshima iyo Hiroshima iyo magaalooyinkii Japan ku yaala dad waxaa dhasha indhala iyo kuwa gacmala iyo kuwa yani mental u xanuunsan iyo kuwa waa aathartii dagaalkii 1945 boqol sano kadib buuraadkiisa u yaala. hydrogen bamkan hadartaan dowladaha waaweynka ay haystaan iyo atomka nuclearka iyo hal bam ba magaalo dhan waxay ka dhigaysaa fajacalna caaliyaha saafilaha ay u rogaysaa. marka dagaaladii hore iyo dagaaladan way kala duwan yihiin. markii hadda aad dib u fiirisid ghazawaadka nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaa iyo waxaa la yiraahdaa 28 ghazwo markii saraayaadkii iyo sirdoontii isku soo dardaro ilaa 30 meelahaas ghazwo nabiga sallallahu alayhi wasallam waa uu galay iyo saxaabadiisii. markii la isku soo duuduubo saxaabadii waxaa ka dhintay 267 saxaabi meelahaas 230 dagaal. وسوسو قري دكتور راغب السرجاني مؤرخ وينه ومسارق ماشي مشركين كدنتين wax gaaraya 1000 iimaylaas 30 dagaal waxa u fiirisaa dagaalkii World War 2 dagaalkii adduunka oo labaad u fiiri 60 milyan oo qof. farqiga u dhaxay marka waxa keenaya asaaliibta dagaalka iyo hubka la isku adeegsanaya keenaya farqigaas. Soomaaliyana aad bay ula socotaa 30 sano oo dagaal ah ku soo jirnay qoriga iyo bambooyinka iyo sawaariikhda iyo dhibaatada ka imaanaysa inta qof ku dhimanaysa. marka waxaan ku soo gunaanudaya waxaalaha isbedelay casriga hore iyo casrigan waxaa kamid ah xuduudahan iyo mawaafiiqda heshiisyada ma aragtay habka dagaalka oo isbedelay qalabka lagu dagaalayo oo isbedelay waxaa kaloo aad u weyn oo isbedelay oo muhiimka ah qaabka dacwada loo gudbiyo. waaga hore one by one baa dacwada loo gudbin jiray iyo qof inuu asaga dadkii magaalo tago dacwada uu gudbiyo waxa laga yaabaa marka in lagu diido ama lagu dhibaateeyo. hadda adduunkii casri waxa la gaaray adoo Soomaaliya jooga ama magaalada yar oo adduunka kamid ku fadhiya inaad kaamiradan hadda wax iga duubayso kala hor fadhiisatid darsi aad jeedisid dacwada aad fidisid tafsiir quraan aad bixisid aqeedada aad ka sheekaysid milyan qof 2 milyan 3 milyan ay YouTube-ka iyo Facebook-ka ka daawadaan. adduunka waa isbedelay. halkaaga qol gaarigaaga adoo wata oo iska shaqeysanaya ama office-kaaga ganacsiga ku jira baad duruus bixin kartaa. WhatsApp baa soo baxay qolal la galo oo maarata 10 lagu bixiya jira adoo gurigaaga fadhiya 100 qof 200 qof adduunka jooga ay ka dhageysanayaan ay ku mutaabacinayaan. marka yani islaamka waxa uu u dadaalaya waxa way oo ugu muhiimsan in dacwada dadka la gaarsiiyo. qof hadda adduunka ku dhigi kara dacwo ma gaarsiin kartid ma jiro. uma baahnid ba hadii xataa hadda Mareykan wuxuu yiri 6 dawladood muslimiin inaan soo galiyo ma rabo dhulkeyga ha soo galinin. anoo Soomaaliya joogan duruus soo diyaarinaya waxaan soo galinayaa YouTube-ka iyo Facebook-ka iyo baraha bulshada soo galinaya. waxay u kalifaa inaas qabanaba ma jiro. marka walaalayaal waxaan ku soo gunoonadayaa islaamka basic waxa uu ah nabadda. islaamka wuxuu ku bulaalaa oo adduunka uu ku gaaraa nabadda. dawladaha hadda islaamka ugu waaweyn Indonesia oo kale islaamku dagaalku muusan gaarin. dad ganacsato ah oo tagay baa gaarsiiyay. Soomaaliya oo dad hadda muslimiin baan nahay waqtiyada islaamka ugu horeeya la sheegay xilligii ugu horeeyay islaamka uu soo gaaray. wuxuu ugu soo gaaray dad ganacsato ah oo xeebaha simid baan soo gaarsiiyay. adduunka dawladaha ugu waaweyn oo dhan islaamka wuxuu ku gaaray qaab wuxuu ku gaaray oo ganacsi iyo billati hiya al-husna. meelaha marka futuuxaadka islaamka dagaalada uu ku gaaray waxa keenay danooyin iyo duruufo iyo munaasabaad baa keenay. iyo islaamku wuxuu ku bilaabmay xilli imbaraatoriyad ah. laba imbaraatoriyad ka waaweyn oo Furs iyo Roman ba dhinaca degan oo raba inay maaragtay madaxa ka garaacaan oo ku celiyaan si marka aad iskaga difaacdid ba islaamku u baneeyay. marka mas'alada runtii jihaadka iyo arimaha maaragtay ku wareegaya nabadda iyo dagaal ku wareegaya
وموضوع رنتي قطر ورنتي أنا سهلنين dad badan oo muslimiin ah hadda waxay ku baaba'een arrimo argagixisnimo noocaas oo kale taa dadka hadda Liibiya dhexdeeda dagaalka ka kicinaya ama Soomaaliya dhexdeeda dagaal ka kicinaya oo maqsad islaam u socda xagee maxaa lagu fasiri karaa qofkaas oo kale argagixisada iyo hadda xarakaadkan musallaxa ah oo dagaalka ku jira oo dadka muslimiinta dhexdooda ku dhex nool runtii waxaas leedahay laba caamil oo weyn baa abuuraya عاملنا waxa way nidaamka caalamka iyo systemka dhaqaaleed iyo raasmaaliyadan iyo shuuciyadan iyo ba wuxuu kugu kalifaya ama ku gaarsiinaya xarakaad noocan inay soo baxaan buu kugu qasbaya markii xaq dhaqaalo cunaqabateen laga saaro xagga fikirka cunaqabateen laga saaro baawarkii laga qaato media laga haysto waxa la abuuraya ama adiga laga kixinaya xaaladii dulqaadka iyo sabarka waxa lagu gaarsiinaya xaalad cunfi aad sameeysid laga careysiinaya taas waa caamil marka dadka muslimiinta ka baxsan maxaa ku kalifay qofka muslimka marka inuu asaga caroodo uu xanaaqo oo heerka noocaas maxaa loo gaarsiin karaa runtii waxa asleeda dadka muslimiinta wax u badan yihiin dad qaabiliyad waxay leeyihiin cunfi ah sidii uu sheegay Malik bin Nabi rahimahullah ninkii mu'arrikha ahaa oo filosoofka ahaa iyo jazaa'iriyaanka ahaa dadka wuxuu leeyahay carabta ama muslimiinta waxay leeyihiin qaabiliyad in la guumaysto ah oo u diyaarsan yihiin aqbalaad bay u hayaan ready ya ay guumaysta buu leeyahay marka uu yimaado uu iska guumaysan karaa hore ugu diyaarsanaa tamarka waxa way qaabiliya lil unf qofka inuu isqarxiyo ama isdhibaateeyo ama dagaal uu galo ama isla markii qori uu qaato uu u diyaarsan yahay hadduu marka uu helo qof ka xanaajiya ama juqjuqeeya ama kiciya ama xaalad maarkiciya hore uu qari ka qaadanaya uu bilaabaya ayadoo uu si dheertay duruufaha kale iyo faqriga iyo jahliga iyo baahida mujtamaceena Soomaaliga la mid ah runtii mujtamac markaas u fiirisid qaabiliyad cunfi ah way ku jirtaa haddii isla markaa laba qabiile isfiiriyaan la yiraahdo tolo ayay hore qofka laga yaabo inuu qori ka qaato xataa uusan isweydiinin uusan dhihin war maxaa tolo lagu dagaalamayo haddii la yiraahdo qabiil hel baan ugu soo duulay nakaciya hore laga yaabo dagaalka laga galo maxaa keenay qofka wuxuu u leeyahay qaabiliyo wuxuu u leeyahay inuu hore dagaalka ka galo taa marka waa cilad runtii weyn waxa loo gudbaa waa wacyi iyo qofka in fikirkiisa la bedelo in maaragtay lala hadlo in lala khitaabo in islaamka saxda ah oo wasadka ah loo sharxo islaamka inuu yahay mid nabadda ka shaqeeya cunfiga uusan islaamka ku shaqeynin وبالتالي laga dagaalamo faqriga iyo jahliga iyo maarta cadaaladda ijtimaaciga la xaqiijiyo dadka financial ahaan loo hagaajiyo oo cilmi ahaan loo hagaajiyo baahida ay ku jiraan ee laga bedelo insha Allah xalaqaadka damban ku sii sharxayna wa ila liqaa'in aakhar wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh